أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا الله سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا رب سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa mid aan marnaba ilaahay subxaana wa tacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana wa tacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku yihi ayuha annaas antum haa huna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegay masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa abaa hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo wakula insaanin alzamnaa طaa'irahu fii cunuqihi ilaahay baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal uu akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي أديكو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أبوري بشرك بني آدم كدمان تودبا وحاو كده حيسي نصب أبترسين يحدد نمو نصبا وصهرا وطل يحدد نمو إلهي سبحانه وتعالى ضدك طلك يكو حددك wuxuu u yeelay xuquuq gaara aadaab lagula dhaqmo waxyaabo laga ilaalinayo arinta noocaasana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku xidhay qofka aakhiradiisa si qofku u guto waajibaadkaasi iyo xuquuqda la dhaqankoodana uu hagaajiyo
waxa ilaahay subxaana wa tacaala sidaasoo kale uu tilmaamay qofka qaraabadiisa xidhiidhiya adduunyada inta uu joogo in cumrigiisa maalkiisa intuba inay barakoobayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi uu amray uu fuliyo awgeed uu u barakaynayo qofka cumrigiisa wakhtigiisa arsaaqdana ilaahay subxaana wa tacaala uu u ballaadhinayo arrinta ku saabsan xidhiidhinta qaraabadu waa waajib dhammaanteenba inoo yaalla ma aha wax ku saabsan uun xagga dabciga iyo arrin qofka ku beeran inay tahay oo qura islaamku wuxuu gaadhsiiyey darajadaa darajo ka sarraysa waxaana uu ka dhigay waajib rabbaaniya oo la gudanayo iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo oo laga dhiganayo sahay aakhiro si qofka muslimka ah ugu intifaaco maalinta ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daray sifaadka iyo tilmaamaha dadka ahluliimaanka ah ee jannada dhaxli doona ilaahay haynugu daree waaladiina yasiluuna maa amara allaahu an yuusala bihi waa kuwa xidhiidhinaya waxa ilaahay subxaana wa tacaala amarka uu ku bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala amar uu ku bixiyey xidhiidhinta qaraabada marka cidda ay xidhiidhinayaan waxaa ka mid ah qaraabadooda qaraabo marka la leeyahay cid kastoo qofka nasab iyo abtirsiin ay wadaagaan waanay kala dhowdhow yihiin qofka siday ugu kala dhowdhow yihiin ayaanay u kala xaq badan yihiin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man abaru yaan u samafalo aan xidhiidhiya aan si fiican ula dhaqmaa wuxuu yidhi hooyada mar labaadkiina hooyada mar saddexaadkiina hooyada mar afraadkiina aabbaha uma alaqraba falaqraba buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadibna ka kuu soo dhow ka xagga dhowaanshaha ku soo xiga sida ay dadku kugu soo kala dhow yihiin ayaa xidhiidhinta ay u kala mudan yihiin xaqna ay ugu kala leeyihiin nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo muujiyey iyadoo dadka badankooda caqligooda uu saxda yahay damiirkooduna uu bad qabo ay ku beeran tahay qaraabadooda inay xidhiidhiyaan haddana rasuulku wuxuu inoo sheegay waxyaaba fara badan oo taa inagu dhiiri gelin kara oo aniga iyo adigaba inagu kalifi kara qaraabadeenna inaynu xidhiidhinno aynu ku xidhiidhinno hadal wanaag dhaqan wadaag nafqaybsi waxtar diineed iyo mid adduunyo intaba waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qaraabadoo la xidhiidhiyaa inay tahay waddo ka mida waddooyinka loo maro jannada oo dhammaanteen ba aynu jecel lahay inaynu ku guulaysanaana ay tahay arrin hadaf iyo haaye inoo ah ilaahay subxaana wa tacaala hayna gaadhsiiye wuxuu ihi saxaabiga la dhaha abu ayuub alansaari radia allahu canhu ictarada الnabiya salى اllahu alيه wasalam caraabiyun fii masiirihi waxaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waddada isu taagay nin reer miyiya reer miyiga wakhtigaasi waxay ahaayeen dad iimaan leh alla kacabsi leh raadinaya mar walba wax ilaahay u dhoweeya waxay janno ku galaan naarna ay kaga badbaadaan faqaala yaa rasuula allah akhbirnii bima yudkhilunii aw yuqaribunii min aljanna wayubaacidunii can innaar rasuulka ilaah waxaad ii sheegtaa wax jannada ii dhoweeya haddaan sameeyo naartana iga fogeeya waa arrin aad iyo aad qaali u ah inaad jannada u dhowaato naartana aad ka fogaato waana guusha qof uu gaadho ee u sarraysa faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu اddunya ila mataacu اlguruur qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ihi rasuulku isagoo ninkaa u tilmaamaya wixii jannada u dhoweyn lahaa naartana ka fogeyn lahaa tacbud اllaha walaa tushriku bihi shayئa watuqiimu الصalaata watu'ti الzakaa watasilu alraxim rawahu albukhaari wa muslim haddaad doonayso jannada inaad u dhowaato naartana aad ka badbaaddo marka koowaad allaha ku abuuray baad caabudaysaa shirkigana waad iska ilaalinaysaa mar labaadka salaada faralkaa ayaad oogeysaa mar saddexaadka sekada ku waajibtay naftaada oo zakaatulfitriya iyo ta xoolahaaga ku waajibtay labadaba waad bixinaysaa mar afraadka waa taa aynu u soconnee qaraabadaada ayaad xidhiidhinaysaa intaa haddii lagaa helo waxaa ballan ilaahay ah inaad jannada u dhowaan doonto aad geli doonto naarna aad ka badbaadi doonto dadku waxa ay jecel yihiin cumrigoodu inuu dheeraado oo adduunyada wakhti dheer ay joogaan qofka muuminka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisu uu ku xidhan yahay wuxuu u jecel yahay inuu cumrigiisu dheeraado suu u kororsado xasanaad iyo wax ilaahay u dhoweeya khalad iyo gaf wixii ka dhacayna suu ilaahay uga toobad keena uu ka soo noqdo dadka adduunyada jecelle adduunyada inay sii joogaan waa jecel yihiin
oo cumrigooda uu dheeraado si ay u tabcadaan ama ay wax uga kororsadaan. wuxuu inoo sheegay rasuulkeennu calayhi afdalu salaati watasliim haddii aynu doonayno aniga iyo adiga iyo dhammaanteenba wax cumrigeenna dheereeya oo xaqiiqo dhaba ah isla markaa arsaaqdeenna ballaadhiya maalkeennana badiya inaynu meel dhow ka heli karno. waa halkee halkaasi? waa inaynu xidhiidhinno qaraabadeenna. wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida anas uu ka soo wariyey iyo abu hurayra labadaba man axabba an yunsa'a lahu fii atharihi wa yubsata lahu fii risqihi falyasil raximah. qofka jecel ay faraxti gelinayso in loo dheereeyo cumrigiisa iyo muddada adduunyada uu joogaayo, arsaaqdana loo ballaadhiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala u barakeeyo, qaraabadiisa ha xidhiidhiyo. idan ma aha qaraabada oo la xidhiidhiyaa mid abaalkeedu uu ku kooban yahay qofku aakhiro marka la taga inuu janno galo. waa mid ilaahay subxaana wa tacaala abaalmarinta wanaagsan addoonka sameeya adduunyada ugu soo hormarinayo. aynu isweydiinno ma xidhiidhinaa qaraabadeenna si cumrigeennu u dheeraado? aynu isweydiinno ma xidhiidhinaa qaraabadeenna si aynu uga baxno faqriga iyo baahida, kadeedka iyo nolosha adag. dad badan baa laga yaaba shaydaanku inuu ku yidhaahdo haddaad qaraabadaada wax siiso adigay baahi kugu dhici doontaa, xoolahaaga inaad iska bixisa ma aha, adiga ayaa gaajoon doona, waxaaga kaydso hayso, qof walba wuxuu isagu haysto ayaa wuxuu ahay. laakiin warka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay warkaa shaydaanka iyo yaboohiisa aad iyo aad ayuu uga duwan yahay. qofka muuminka ahina waa ka dhegaysta warka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ballanqaadada dhabta ah ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u sheego. waxaa laga yaabaa dad fara badani arrinta ku saabsan xidhiidhinta qaraabada inay u qaataan inay tahay arrin ku saabsan uun sida ay kula dhaqmaan oo adiguna inaad ula dhaqanto, oo ay u dhigaan abaalgud. oo qaraabadii haddii ay wanaag kugula dhaqmaanna wanaagaad kula dhaqmayso, haddii kalena aad ka cadgoosanayso. arrinka qaraabadu sidaasi waa ka duwan yahay. qaraabadu haddii ay ku wanaajiyaan, hadday ku xumeeyaan, hadday kugu khaldamaan, hadday ku gooyaan, intaba adigu sidaa yeeli maysid. waa haddaad doonayso in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xidhiidhiyo oo rabbi subxaana wa tacaala uu kaa raalli noqdo. qof waliba wuu jecel yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilaaliyo, inuu rabbi subxaana wa tacaala uu xidhiidhiyo. dhammaanteen maxaynu ku gaadhi karnaa taas yaa cibaad allah? waxaynu ku gaadhi karnaa oo ballanka ilaahay subxaana wa tacaala aynu ku helaynaa, ballanqaadka ilaahay dhabta ah, inaynu qaraabada xidhiidhino. wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lamaa khalaqa allaahu alkhalqa wa faraga minhu qaamat iraxim. ilaahay markuu abuuray khalqigan ee abuurkii khalqigan uu dhameeyey waxa istaagay alraxim, waa qaraabadii. ilaahay baa u yeelay suuro oo ka dhigay mid hadlaysa oo su-aal ilaahay weydiinaysa oo jawaabaysa. faqaala rabbuna subxaana wa tacaala mah, ilaahay waxa uu ku yidhi maxaa dhacay? faqaalat hada maqaamu alcaa'idi minka, hada maqaamu alcaa'idi bika min alqatiica. halkani waa meesha uu joogo ka kaa magan gelaya goyn. qaraabadu ilaahay bay ka magan gashay goyn, ilaahayna ballanqaad buu siiyey. qaala allahu subxaana wa tacaala alaa tardayna an asila man wasalaki waan aqطaca man qaطacaki. miyaanad raalli ku ahayn inaan xidhiidhiyo ka ku xidhiidhiya? wallaahu subxaana wa tacaala wacduhu xaqun wa sidqun. ilaahay ballanqaadkiisa iyo yabohiisu waa xaq waana run. wallaahu laa yukhlifu lmiicaad. ilaahay ballanqaadka ma baajiyo. raalli miyaanad ku ahayn inaan xidhiidhiya ka ku xidhiidhiya? raalli miyaanad ku ahayn inaan jaro qofka ku jara ee ku gooya? qofka qaraabadiisa xidhiidhiya, xidhiidhinta ilaahay bay abaalmarintiisu tahay. ka ilaahay xidhiidhiyeyna xadhkihiisu way adag yihiin. qofka qaraabadiisa gooya ciqaabka ku dhacaya wuxuu yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala xidhiidhka u jaro. qof xidhiidhkii ilaahay uu ka go-an yahayna waa qof khasaaray oo halaagsamay. waayo bani aadamku ma aha mid isku filan, awooddiisu ma gaadhsiisna inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka maarmo ilbiriqsi amabase inka yar. waxa ay tidhi alraxim ama qaraabadii, arrinkaa raalli baan ku ahay rabbiyow. faqaala allahu subxaana wa tacaala laki daalik. arrinkaasi haddaba waa ballan aan kuu qaaday, arrinkaana waad leedahay. nin baa u soo ashkatooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu uhi ina liya qaraabatan asiluhum wayaqطacuunanii.
waxaan leeyahay dadaanu qaraabanahay anigu waan xidhiidhinayaa iyaguna way jarayaan wa uxsinu ilayhim wa yusii'uuna ilaya si fiican baan ula dhaqmayaa iyaguna dhaqankayga way xumaynayaan wa axlumu canhum wayajhaluuna calaya anigu waan ka dulqaataa iyaguna way igu gafaan muxuu xaalku talow noqonayaa ma sidoodoo kale inaad u dhaqantaabaa abadan qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam in kaana alamru kamaa taquul fakaأnnamaa tusifuhum اlmal arrinku hadduu yahay sidaa aad leedahay waxay ka dhigan tahay raran inaad waraabinayso afkaad ugu gurayso xidhiidhinta u samafalka u dulqaadashada adigu aad samaynaysaa aday ku anfacaysa iyagana way dhibaysaa qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam walaa yazaalu macaka dahiiru min allah maa dumta calaa daalika hadday qaraabadooda hagardaamo iyo xasad iyo dhibaato ay kula daba socdaan adigu xidhiidhinta wad nebi maxamed baa kuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam in ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu soo dirayo cid ku ilaalisa oo dabin kastoo ay xidhaan kaa hor qaada oo hagardaamo iyo shirqool kastoo ay kula damacsan yihiin buriso oo meesha ka saarta inta adigu aad tahay mid qaraabadiisa xidhiidhinaya oo sida ay u dhaqmayaan aan ula dhaqmahayn qaraabada oo qofku uu xidhiidhiyaa waa mid ka mida furuucda iimaanka iyo laamaha ka baxay geedkiisa qiimaha badan qof walba inta iimaankiisa uu leegyahay ayaa qaraabo xidhiidhintiisuna ay leekaanaysaa haddaynu xidhiidhino qaraabadeenna aniga iyo adiguba qaraabadu waa dadka kuwa isugu dhow waxaa dhacaysa inay bulshadu iswada jeclaato oo dadku waa wada qaraabo waa wada tol iyo wada xidid bulshada qaraabada dhexdeeda lagu xidhiidhiyaa waxay noqotaa bulsho isjecel bulsho nafqaybsi leh bulsho isu naxaysa bulsho isu naxariisanaysa bulsho qalbigeedu uu midaysan yahay bulsho iscaawinaysa oo khayrka iyo wanaagga isu kaashanaysa qaraabadeenna waxaynu ku xidhiidhinno aniga iyo adiguba waxa ugu horeeya ugu mudan inaynu ku dadaalno sidii naar ay uga badbaadi lahaayeen ma aha un inaynu siinno waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo waxay gashadaan iyo meel ay galaan iyo gaadiid ay fuulaan iyagoo diintii ka madhan waayo wax kasta oo ay jecel yihiin adduunyada haddii aad ku siiso laakiin naar wixii ay kaga badbaadi lahaa inaad ka qadiso wax allaaliya waxay u tartay ma jirto walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara muuminiintaay naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka badbaadiya marka koowaad waa naftaada mar labaadkana waa qaraabadaada cilmigaad baraysaa wanaaggaad faraysaa xumaantaad ka reebaysaa meelaha khayrka ayaad ugu yeedhaysaa waxaad u hadiyeynaysaa kutub wanaagsan oo ay akhristaan canjaladiyo khayr ay dhegaystaan khayr baad tusisay ajarkii waa lagu qorayaa xidhiidhintii qaraabanimaa kuu socota sidaasoo kale waxaad noqonaysaa qof ka shaqeeyey iyagana badbaadadoodii inay naar ka badbaadaan jannana ay ku guulaystaan qaala allahu subxaana wa tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin nebi maxamed buu ilaahay sidaa ku yidhi waana amar ku socda qof kastoo muumin oo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam rumaysan u dig qaraabadaada kuwa kuu dhow nebi maxamed amarka uu hoggaansamay wuxuu u yeedhay tolkii oo dhan facama wakhasa kuwii fogaa ee guud tolkii guud iyo kuwii gaarkaaba ula hadlay ilaa uu ka soo gaadhay inantiisii faatima radia allahu canhum sidaasi ayaa inala gudboon waxtarka adduunyada laysugu taraa waa adduunya oo uu dhammaanayaa in waxtar aakhiro qofka badbaadiya ilaahay subxana wa tacaala naciimkiisa iyo raallaanshihiisa uu ku helo inaad u tarto aad ku xidhiidhiso ayaa aata ugu muhiimsan ilaahay dhammaanteen ba hayna waafajiyo xidhiidhinta qaraabada wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره